waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 31 bisha shanaad 2021 sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreeto 15 casho gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga ilaahay baynu mahadnaqaynaa inoogu soo dhameeyey programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si ammaana iyo dadkii oo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacayla bariya galbeedba qaran ahaan waxaa laydinku mahadnaqayaa hawshaa qarankaa u qabateen iyo ilaahay guushaa inoogu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guulla ah ku soo hoyseen dowlad baa qaranku yeelanaysaan dabeecadana waa idina garab joogaynaa maanta tuurnimid arrintii sharciyad ah oo doorashada ku saabsan howlaheeda oo kole dee waa arrin xeer ka qoran oo muddaysanoo maalinba tallaabo la qaado xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba waxaan filayaa maanta Somaliland xafiis kasta iyo golo kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceedan ka qayb galayaan marka waa soo dhaweynaa wixii tala iyo arrin la socotaan waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idamkiisa ay nabad inoogu dhamaanayso inuu dhammaan hareeraha ka joogo waa idin garab joogaynaa hawsha waa idinla wadaynaa dhibaatooyinkeedin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo pressureka waa idin tixgelinaynaa wixii aanu idinla qaban karo waa garab taagan marka hore waad salaamaynaa marka labaad waxaanu maanta aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii ilaahay mahadii inoogu soo dhammaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay sidaas sheegtay talaabada inagu xigtaa waa doorashadii sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh mudane madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9aad kuna ekayd bisha sanaad 2021ka markuu arkay qodobka 6aad firqadiisa 1aad 2aad 3aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91/2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 31 bisha shanaad 2021 sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreeto 15 casho gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo